كسر دواد بنت بخاري ده ربع هذا الشيء رميصو أما هر رميصان ilmo ayaa iga baahan anaa soo nuujiyo inta aan lay cunin رارمية وصول الله بنيسا hooyo waa soo daaxday intee ku maqnayd hooyo kuwa inkaar qaba ayaa meel igu xirtay oo i cuni rabay deeradii la hadashay nebiga sallallahu alayhi wasallam isagoo maraya meel saxara ah uu maqlay cod leh yaa rasuulallah rasuulki ilaahayow kadibna nebigii ilaahay wuxuu fiiriyey hareerihiisa waxna wuu arki waayey ugu dambayna wuxuu arkay deera yar oo la hadlaysa nebigu sallallahu alayhi wasallam waana ku soo leexday waana u dhawaaday waxaanu ku yidhi maxaad u baahan tahay deeradii baa waxay tidhi rasuulkii ilaahayow waa lay xidhxidhay waxaana in leeyahay 2 carruuroo yaryar waxaan doonayaa inaan soo nuujiyo buurta dushoodana way saaran yihiin ee waan soo noqonayaa iyo xadhigayga fur nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam miyaad soo laabanaysaa waxay tidhi haa waan soo laabanaya haddaan soo laaban waayana ilaahay hay cadaabo deeradii yarid xadhkihii baa laga furay buurtiina way tagtay wayna soo nuujisay ilmaheedii kadibna way soo noqotay nebiguna sallallahu alayhi wasallam halkii buu ku xidhay